السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعنا wanaagsan asxaabta baada barlaba fakas meel walba joogtaan waa 12 bisha 10aad sanada 2025 ayna ku asaysan tahay maalin Talaata ah baada barlaba fakas asxaabteeda maanta waxaan u haynaa waxa weeyaan waa muuqaal kooban muuqaalka maanta kama hadli doono maxaa cashir ku saabsan iyo maxaa istiraatiiji ah ama maxaa tireed ah balse waxay ku saabsan tahay maskaxdaada iyo aqoonta ku jirta iyo intaanoo sana suuq aad ku soo jirtay iyo waxyaalaha maanta mugdi kaaga jira aad u maleysid in waxba qabsan karin inaad isku filan tahay ayuu muuqaalkani ka hadlayaa waxaad ogsoon tihiin badan aad ku weyn baaxad badan maanta cilmigeedu hada tiraadi waan soo koobayaa adiga baa ku jahwareeraya oo waqtiga kugu dhamaanaya computerka aad isticmaashid ama computerka maanta aad dul taagan tahay qof walba meel ayuu ka leeyahay shaqadiisu macalinka iskuulka ama jaamacadda dhigo waxa uu ka leeyahay in uu kaga baahan yahay oo ah inuu PPT ku soo diyaarsado inuu presentation ku soo jeediyo inuu casharo ku diyaarsado qofka kale oo engineering-ka ah meesha ka waafaqaysa inuu ka qaato qofka kale oo dhakhtarka ahna meeshii uu asiga kaga baahan yahay ayuu ka isticmaalaa taa waxa example fudud kugu filan maanta dad tiraadid waxaan rabaa in isku barto waxyaalahaani wax lagu editing gareeyo Adobe Premiere aan baranaa hadaad tiraadid aniga CapCut baranaa Sony Vegas baranaa KineMaster baranaa dabcan all of them asku wada baranaa editing ayaan u baahanahay adiga bay waqti ugu qaadanaysaa taa waxaan uga jeedaa qof walba wax u shaqeeya ama meel cayiman inuu ka qaato waa muhiim istiraatiijiyada aad baratay istiraatiijiyada nooceed doonta ha ahaato dad maanta waxaa jiro ummaddu inay marin habaabiyaan jecel oo doonaya inay maanto idil adiga aad u xirxirnaatid taa marka ka gudub taana ka kor isku day marka haddii aad heshid nidaam kuu shaqeeya nidaamkaasi aad dareentid inuu kuu shaqeynayo warreedkiisuna uu yahay mid fiican ka fuqin laakiin haddii maalin walba adiga shaqo laga dhigto oo maalin walba lagu yiraahdo cashir hebel baan kuu diyaarinayaa muuqaal hebel baan nasaan kaga sameeynaya inta lacag keen inta ka dhac inta ka bax dabcan adigu wali aadan qaan gaarin ayaa suuqan iskaga tagaysaa tusaale ICT isticmaasha ICT way model badan tahay modelkii adiga aad tiraahid modelkaani baa in anfacay modelkaani ayaa noqday model runtii aniga self fadhiya ama wax ku qabsada hadaad tiraahid modelkaasi ku ekaaw model laakiin hadaad isku furtid wadooyin fara badan waxaa kugu imaanaya biyo fara badan tii horena adoo gaarin ayaa tan luminaysa marka isku day marka in aad ka kortid in maanto idil adiga mashruuc aad noqotid saadarteed waxaan idin leeyahay asxaabta baada barlaba fakas ayaa si gaar ah ula hadlayaa ogsoonow haddii aad maanta aad fahamsan tahay nidaamka sida u shaqeeyo oo aad fahamsan tahay inaad practice fara badan aad sameyn kartid oo aad fahamsan tahay in aad kaliga aad qaadan kartid cid aad u baahan tahay ma jirto haddaan idin leeyahay cid maanta inaad Discord-kiisa ama aad Telegram-kiisa group aad ku dhex jirtid xitaa baada barlaba fakas noqoto inaad ku dhex jirtid ma ahan waqti taas kaga lumin nin wax qabsada noqotay waqtigii waxaa la joogaa aad wax qabsan lahayd 2026 baa in yar ka harsan adigoo 2019kii soo hardamayay 2026 la joogo maanta inaad wili xeeradada ku fidsan tahay inaad wili aad taagan tahay maxaa cusub maxaa la hayaa inta taagan tahay taa aad bay walaac kugu tahay cilmigu ma dhamaado laakiin ogsoonow adigoo galaas buuxa biyo wata ama galaas buuxa caano adigoo wata oo galaas kale buuxa biyo aad soo qaadatid aad tiraahid waan ku kor darayaa asigoo buuxo waxay noqonaysaa in galaaskii caanaha kugu jiray banaanka imaado waayo oo buuxa oo ma qaadi karo marka haddii maanta aad ila faraban isku furtid aad tiraahid istiraatiijiyadeedii inta ka maqan kana ka maqan waxaa jirtay dadka nidaamkaani barta siiba ICT dadka barta waxaa laga kari waayay wax la yiraahdo bias qof walba maanta ardayga cusub daaray wuxuu kaga hadlaya wax la yiraahdo biasku waa muhiim hase ahaatee ma aha 100% xaqiiqada laga hadlayo ninkii nidaamkaani keenay wuxuu ku leeyahay modeladaan aad ku tiraha badan midkii aad fahamtay ku tireed gareeyo cid kale warkiisa galin laakiin haddii maanta oo dhan aad dul taagan tahay ninkii maqaayad furtaba maqaayad dul taagan tahay maxaa la furay maxaa la hayaa aad leedahay adigoo maxaa la hayaa la dhahay runtii gambar kugu dhacay teeda kale ogsoonow hadda ayaan idin leeyahay iska ilaaliya dad wanaagsan waa jiraan dad aan wanaagsaninna waa jiraan saadarteed isku day marka inaad ka kortid waxyaalaha maalayacniga ah sidoo kale wax walba bilow iyo dhammaad ay leeyihiin
wax walbo bilow iyo dhamaad waa ay leeyihiin saa darteed gabagabadii waxaan doonayaa maanta cid rabto ma jirto oo dadku isku mid ma ahan dadyow maanta waxaa jiro markay arkaan inaad gaariga aad la saaran tahay oo aad meel fiican aad la marayso jecel inay kaa tuuraan soo taa aragtay markaa yar tahay baawur waxaa jiro magaalada dabcan runtii magaalooyin qofka jooga ayaa yaqaanay inta badan waxaa jiro baawurooyin runtii xaaji 50 ha noqoto hoomey waxay doonaan baawuradan runtii xaafadaha ama magaalada wareeg ilmaha yararka way liigan liid waxa la yiraahdaa gadaal inuu ka qabsado darawalka markuu arko darawalka labo marka darawal wanaagsan haduu yahay gaariga inuu qaboojiyo joojiyo ayuu ka burinay wax kulliya socodka ka tag meesha laakiin darawal xaasid haduu yahay ama darawal aan jeclaan inaad runtii wax qabstid oo cadow ah aad aragtid wuxuu sameeyaa gaariga steeringkiisa ayuu leexinayaa si wuxuu rabaa markoo bidix iyo midig u leexiyo aad ka filiqdid macnaha aad ka dhacdid gaariga ama meel wuxuu ku raasanayaa askari jiif la yiraahdo laamiyada yaalo oo ay bootin ku raasanaya si aad adiga u dhacdid marka dadkan isku mid ma ahan dadka maanta runtii waxaan ka hadlayaa oo aan in focuskana saarna waxay tahay dadiyowga dadka wax u soo jeediya taa baan ka hadlaynaa dadka marka dad isku mid ma aha dad waxaa jira marka jecel inaad horumarka noloshooda ay gaareen inaad la gaarto dad jecel jira dadna waa ay ka xun yihiin oo waa ay ka qoomameenayaan oo maalmaha waxay taageen inay meel ka cataawaan oo waxaan loo joogin dadka ay ku maran habaabyaan oo maran habaabin wadada ka lumiyaan ay doonayaan marka si markay wadada ay kaaga lumiyaan tooda way heesanayaan qofkuna bilowga markuu yahay si wadada ugu lumo walaac baa loo furayaa maxaa leeyahay inta ka bax ogsoonow waxaan ku sheegayaa walaalkayga iyo walaashaydiba suuqani hadaad fahamtay oo nidaamkaaga ku shaqeynayo dhagaha furaha gasho ayar u soco cidna war ha ka dhageysan xitaa anaga baahda barlaba fakas waxba hanaga dhageysan xitaa hadaad wax fahamtay oo waxba aad u baahnayn hadaad fahamtay cidna wax ka dhageysan oo kaliya shaqeyso aad baad mahadsantihiin baahda barlaba fakas meel walba joogtaan taada kale muuqaalkani ma ahan inaan dadyo lagu duraayo ama dad lagu haysto ama qof magaciisa lagu soo qaaday laakiin waxay tahay dad waxaa jira 19kii ilaa haatan soo taagan oo wili dhahaay waxaan rabnaa inaan inta galno inta ka aragno inta ka baxano oo wili jahwarar ku jira marka jahwararkaas aad u baxid wixii ku shaqeeya aamin ilaahay rumay wixii rag u kaco rabbana aqbal weermooda aad baad mahadsantihiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh